xaaladda cusub ee badda cas iyo dagaalka Somaliland ay ku soo qaadeen afarta dowladood ee Soomaaliya, Djibouti, Eritrea iyo Masar. Waxaa durtaba la helay xogo ku saabsan shirarka kala duwan ee Casmara iyo Djibouti uga socday madaxweynayaasha Soomaaliya ka Djibouti iyo waliba ka Eritrea. Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Djibouti, iyo Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha federaalka Soomaaliya, ayaa u muuqda rag suurti lagu afuufayo maalinta madaxweyne Trump xilka loo dhaarinayo ee 20 bisha January ee inagu soo aadan. bishan December waxa ay kareysteen qareenada Mareykanka ugu qaalisan muddo sanad ah, iyaga oo bil kasta kula heshiiyey in ay Soomaaliya ay siinayso $50,000 Mareykanka ah qareenadaasi oo laga rabo kaliya in ay madaxweyne Trump iyo Jamhuuriyadda Somaliland kala dilaan. Mareegta lagu magacaabo Addis 24 ayaa si cilmiyeysan oo ku salaysan xaqiiqda waxa ay shacabka Itoobiya u sheegtay in G20 oo uu Mustafa Cagjar ka mid yahay uu isku qalday xukunkii dowlad deegaanka iyo kii qabiilka. Maatida dacwadana lagu laayay qorshe laga soo fulinayo meelo khaldan, kuwaas oo ka soo horjeeda heshiiskii Mau ee Somaliland iyo Itoobiya ay hore u kala saxeexdeen. dhinaca kale, gobolka Geeska Afrika waxaa ka jira xiisado siyaasadeed oo sii xoogaysanayay, gaar ahaan kadib markii Itoobiya ay heshiis dhinaca badda ah la saxeexatay Somaliland bishii January ee sanadkan 2024 ee sii dhamaanaya, taas oo kor u qaaday xiriirka Muqdisho iyo Qaahira. Turkigana 12 bishan aynu ku jirno waxa uu dhexdhexaadin heshiis ah lagu soo afjariyay khilaafka Soomaaliya Itoobiya uu ka dhex waday maalmihii ugu dambeeyay dalkiisa, inkastoo ciidamada Itoobiya aysan ka qayb noqon doonin howlgallada cusub ee loo qorsheynayo sanadka cusub in ay nabad ilaalin u yimaadaan dalka Soomaaliya.